بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، إلهي سبحانه وتعالى mahad iska leh. Intaa kadib waxaan madashan quruxda badan ee aadka u bilan isugu imanay in aanu ka qayb galno daahfurka xafladda daahfurka kitaab ku soo biiray saaxada dabcadiisii labaad. kitaabkaasoo la yidhaahdo الدعوة الإسلامية في كينيا. kitaabkaas oo alifay sheekheena fadiilatu sheekh Xuseen Ibraahim Buraale oo ka mid ah culamadeena waaweyn ee North Eastern, gaar ahaan magaalada Gaarisa. insha allahu tacaala xafladan waxaanu ku furfuran doonaa aayaat min adikri alxakiim oo inoo akhrin doono أخونا عبد الله الشيخ القاري عبد الله الكندري، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزاك الله خير الجزاء على هذه الكلمة، على هذه التلاوة العطرة. انت كذب أحبابي في الله، waxaa insha allahu tacaala farxad weyn inoo ah maanta inaan u fadhino kitaabkan lasoo bandhigahayo oo ku saabsan taariikhda dacwada islaamiga ah ee dalkani Kenya. waxaa xusid mudan xafladan in ay aad iyo aad u sharfeen aqoon-yahankii reer North Eastern, khayr allah siiyo, mashaayikhdeennii iyo dakaatiradeenii dacwadan ka jirta dalkani Kenya juhdiga badan kusoo bixiyay ee taariikhdeedaba hadda aan u fadhino in laga sheekeeyo. raggii juhdiga ugu badan ku lahaa ayaa inoo buuxiyey iyo thimaarteedii. yani taqriiban dakaatiro aad u tiro badan baa halkan ka muuqda. waxaa xusid mudan fadiilatu sheekh الدكتور إبراهيم فارح بفدية، فضيلة الشيخ الدكتور شيخ عبد الرحمن ورديرة، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد اللطيف، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن طويل، فضيلة الشيخ الدكتور محمد علسو، فضيلة الشيخ الدكتور آدم شيخ حسن آدم شيخ علي، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله نيو، فضيلة الشيخ الدكتور ولي عيديد، فضيلة الشيخ الدكتور يحيى السيد، iyo dakaatiro fara badan, fadiilatu sheekh doctor Daawud iyo rag badan oo dakaatiro oo ka wada muuqda meeshan. dhammaantood waxaa weeye thimaartii dacwadaasi gobolka North Eastern iyo raggii usoo halgamay weeye. ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr badan ha ka siiyo. taariikh aad iyo aad u dheer bay leedahay dacwadan. إن شاء الله تعالى وأنا مدة وقاعدة دقة هي كتاب كأنن وشيخ إنه ألفي وحن رأى مركز كلمة كوبات بينان إسقاسيو سيو إنه فهيو كتاب كا وحا وكلن صدي يو قرتو ألفات دي سبيل الله السبب تيو ألفي انتبه فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
waqtiga ayaa aada ciriiri u ah marka anigu hadal dheer ma dhahay. alxamdulilah ilaahay baa mahad leh. kitaabka dadkii maaragtay ay soo aqriyay baa ka sheekeynaya insha allahu. anigu waxaan sheegi rabaa uun laba shay keliya. sababtii u kaliftay ama meeshay ka bilaabatay iyo muxuu ahaa islaamka waqtigii uu soo galay waddankan Kenya. sababtii u kaliftay wuxuu ahaa ama aan ku fikiray marxalad thanawiya markaan akhrisanaynay Madiina ayaa ardada waxaa la soo siin jiray homework nashaad sayfi ah ayaa la soo siin jiray mawaadiic yar yar oo taxaddath can baladiki ay ka mid tahay. marka mawduuc noocaas oo uu soo dhajiyay macadkii thanawiga ahaa markaan sana uula ahayn 1982 meelahaas ayaan maartay si aan soo qaatay markaasaan ka qorqoray safaxaad ayaan ka qoray can Kenya. markaan noqonnay macallimiin baa loo bixin jiray muxuu ahaa ardada maqaalka ay soo qoreen. marka macallinkii aniga liigu hagaajiyey wuu ila fiirfiiriyey wax 20 safxa camal bay ahayd. marka wuu nisbo fiican oo najax buu iga siiyey. marxalad thanawiya aan ka baxnay, marxalad jaamiciya aan ka baxnay, marxalad magister markay ahayd yaa mawduuc soo dooro la yiri waraaqiyoo iigu jiro faylka iigu jiro ayaan marka ka dhigtay muxuu ahaa mawduuci asaga ahaa. meeshaasaan marka yaa sababtaas ay ahayd. waxaanan kitaabkan muxuu ahaa waqtiga aan qoray waa 1989. in badan oo inta fadhiyo ma way dhalaninbo. waxaan la dabciyey 10 sano kadib 1998 yaa dabacdii u horreysay la dabciyey. madaarista waa lagu aqrin jiray muxuu ahaa Northeastern iyo Kisawni iyo muddo kadib ku kalaan maartay ayaan isku dayay inaan bilaabo oo ka bilowdo taariikhda kan uu ku joogsaday laakiin ma ii dhammaytirmin. kan oo markaa baa liigu maartay nasixiyey inaan dabcadiisi soo celiyo intaan taxdiid ku sameeyo. intaas waa kitaabka. dad badan Kenya waxay u haystaan waddan nasaara si hadday u arkeen laakiin waddankan 10 qarni bay muslimiin maamulhayeen 10 quruun oo wax gaala aynan joogin. dad iska cawaam oo duurkan ku jira moogi qarnigii muxuu ahaayay 7aad ee miilaadiga islaamka taariikhda hijrigana ay ahayd 65 waxaa weeyo waa dawla al-amawiya waqtigeedii khaasatan khilaafadii cabdilmalik ibn Marwan. waad garanaysaan in mucaaradadii uu cabdilmalik uu ka qaalib noqday oo uu qahray oo xajaaj uu maartay uu adeegsaday. marka jaziira al-arabiya iyo shaam iyo ciraaq iyo dhulkii markuu kulli wada qabsaday mucaaradadii asaga ka horjeeday way hijroodeen way kala carareen. marka dadkii u horreeyay ee soo hijrooday ayaa meelahay soo degeen waxaa ka mid ahayd sawaaxishan Kenya jasiirad la dhihi jiray Bate haddana loo yaqaano Faza Island oo juzurtan laamo ka mid ah ayaa 65 markay ahayd taariikhda hijriga ayuu soo galay islaamka Kenya. hijraad baa ka dambeeyey oo maartay ku xigay hijrada waxay ka imaatay Cumaan kuwa kale oo axsaa ka imaadayba yaa ku xigay oo 122 meelaha hijriga kuwa kale ka dambeeyey ilaa ay saltanaad islaamiya ay ka abuurmaan sawaaxishan muhiid al-hindi oo ilaa tagaan muxuu ahaayay Mozambique 10 qurun kadib ay Portugalka soo weerareen. taariikhdaas ma artay waddankan kolkii caalam thalith la qaybsaday oo Brussels lagu qaybsaday 1888 wadamadii markaa qayb ahaan Kenya iyo Soomaaliya u qaatay waxaa ka mid ahaa Ingiriiska iyo Almaaniya. ingiriiska waqtiga uu soo galay 1988 buu soo galay. Kenyana 1900 baa intidaab rasmi ah ayaa loogu dhawaaqay. kitaabka taariikhahaas ay ku qoriyeen inta badan inta baan maartay aniga ka sheegay maartay idin sheegaya wixii kalena dakatirada ayaa noo dhamaytiraya. wabillahi tawfiiq sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. جزاك الله خير الجزاء شيخنا الشيخ حسين.
nubdadaas kooban ee uu ka warramay ee uu ku saabsanayd taariikhda islaamka ee dalkani Kenya. Sidoo inoo sheegay runtii waa macluumo aad iyo aad muhiim u ah dadku inay ogaadaan in gaalada inaynan naga lahayn dalkan ee muslimiintu ay u soo horeeyeen, taladiisa iyo gacan ku hayntiisana ay muslimiintu u horeeyeen. xataa luqadan la farad yeelay Sawaaxiliga inay ahayd luqadii dadka muslimiinta ay u isticmaali jireen maamulka iyo idaarada. kadibna gumaystii markuu arkay iyadii buu tacmiimiyay waayo dhan bay diidanayeen Sawaaxiliga in lagu farad yeelo oo waxay aad u wadi jireen in afki ku yal la qaato ama afafka kale la qaato. laakiin ilaahay amarkii wali waxaa baaqi noqotay luqadda islaamiga ah ee Sawaaxiliga ilaa aminkan. dhismooyinka qadiimka ah iyo lacagtii hore waad aragteen xuruufta carabiga ay ku qoraan jirtay. marka taariikh fiican buu islaamku ku leeyahay dalkan. marka kitaabkan waxyaabahaas oo dhan buu qaadaa dhigayaa iyo boqoradii iyo mamaaligtii soo maray xeebaha dalkani. waxaan rabaa hadda inaan u gudbo duyuuftan sharafta badan ee waliba runtii nukhbada ah ee maanta isugu timid halkan, inaan iyagana kelmado kooban siiyo. intaanaan u gudbin waxaan rabaa in aan soo dhaweyntii aan sii wado, sababtoo ah dakaatiradii aan soo tirinayay aadka u fara badnaa. waxaa la yidhi intaa in la eg baad ka tagtayba. waxaan kaloon soo dhaweynayaa fadiilatu sheekh doctor Cabdilcaziiz oo isagana nala jooga. waxaan kaloon soo dhaweynayaa fadiilatu sheekh doctor Xuseen Khalifa oo isagana nala jooga. waxaan kaloon soo dhaweynayaa isagana fadiilatu sheekh doctor Shujaac oo isagana nala jooga. waxaa kaloon soo dhaweynayaa fadiilatu sheekh doctor Xuseen Khaliif oo isagoo nala jooga. waxaa kaloon soo dhaweynayaa fadiilatu sheekh doctor Ibrahim Xasan oo isagana nala jooga. waxaan kaloon soo dhaweynayaa isagana fadiilatu sheekh doctor Ibrahim Ra'iis oo isagana nala jooga. insha allahu tacaala kolba waanu tajdiidin doonaa listiga dakaatirada iyo nukhbooyinka faraha badan ee maanta isugu yimid meeshan. waxaan kelmad ku bilaabahayaa qof soo akhriyay kitaabka oo soo mudaalacaystay oo maaragtay xog ogaal ah si uu warbixin uga bixiyo, waana fadiilatu sheekh doctor Ibrahim Faarax. falyatafadal mashkuuran ma'juuran. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. horta marka ugu horeysa magacyadan hadda la bartay aad loo tiriyo munaasabooyinka in laga daayaa iska fiicnaan lahayd, sababtoo ah ruux kasta mansab iyo meeqaam Soomaalidu waxay dhahdo iyo ku joogaa. dhibkuna wuxuu ka dhacaa oo anigu mikrofoonka markaan qabto MC ahay laygu qabsadaa, hebel waad sheegtay maxaad hebel ooga tagtay. hadda dadka safka hore kuu fadhiya ood ka tagtay doctor Cabdallah Xasan Xuseen baa ka mid ah. hadhowt waxaa laga yaabaa inuu si xun kuu dhowro ibnu sayid. inta haddaan ka soo tagay ikhwaani, jazaakum allahu khayr. horta xuduurka sidan oo kale loo soo xaadiro oo tashjiic dacawi ah lagu siiyo kitaab la alifay oo manfaco adduun aan loo imanin, ajirkay leedahay waad garanaysaan. horta niyooda xusnu niya mar kasta, inama alacmaalu binniyaat. cibaaday u bedeli arrintan juluuska aad fadhida cibaado noqon. midda kale kitaabkan iyo mu'alifkiisa yaan wax yar ka dhihi lahaa. 4 daqiiqa la ii sheegay. 4 daqiiqa haddii aan ku soo koobo biidn illaahi alkariim 4 dhinac yaan ka hadli. marka u horeysa waa kitaabkan iyo ahmiyadda uu leeyahay. kitaabkan soo akhriyey haddana ma ahayn dabca al-uulaa, markii ugu horeysayba ay soo baxday dadkii uu sheekhu u hadeeyaan ku jiray. kitaabka horta ahmiyadiisu 2 dhinac bay hadda ku sugan tahay. aljaanib alawal waa kitaab ka hadlahaya ama ta'siil u samaynhaya jaanibka dacawiga ee Kenya ka jira. way jiraan taariikhyo laga qoray muslimiinta iyo islaamka iyo Kenya laga qoray way jiraan, laakiin jaanibka dacawiga ah kitaab sidaa wax ooga hadla ma jiraan dhihi karnaa xasb al-itlaac mutlaqan ma dhihi karno. waa laga yaabaa rasaa'il jaamiciya ah inay jiraan oon madbuuc ahayn. kitaabkuna sidiisaba hadduusan madbuuc ahayn ma tirsana. markii la dabciyo unbad la dhihi sana uula hadduu dhashay kitaabka ha loo taariikheeyo.
أهمية اللباد أو كتاب كان أولي هاي وكين كتاب كقرن أف عربي أو كين يكشكية مرتي مؤسسوين كدعوية وحي أي سوقبتين تاريخيه أي مرة سومرين جانب كمؤسساتك يو كتابكو صفة عن وشكين هيا وحاب أغرس أو كتابكو باللابن هيا جغرافية كينيا وما أنت هدي أدراديسو إناد إنجليش هشو ترجمت مويانه ميل سيدا اقتصاديا اجتماعيا دعويا عقديا وحكسسا وكلا دغدغا كتاب ويري هي كتاب كان جانبك اد بصفه عن اوغا هدلهيا مالف جهد ببخيي معلوماتك كجرا او دينعا دعويga ah iyo dhinaca juqraafiyada Kenya ah oo maanta runtii hadaa tiraahdo bal hal maado ama فصل واحدة هل لقوا بحيو تاريخ ذا إسلامك أما تاريخ ذا كي حتى جغرافيا ذا هذا مدارس أنت بدل جغرافيا الجزيرة العربية لقوا آخرها مدارس بمركز الجزيرة حيكون هذا بديل بما هنا وحكو قرن أف عربي أو علمي وآخر ما هنا كم با أو نغرنا أنو آخرنا أن شيخ جهد جالس بحيي خير الله سيو meelaha marka hadda maanta kitaabka loogu adeegsan karo oo runtii loo baahan yahay intaan horta bal adeegsiga gaarin waana ibn sayyid uu garab taagan yahay inaan ka sii jeedsadana oo aan arkino oo ay runtahay meelaha kitaabku uu ku fiican yahay waxa kamid ah tashjiic Soomaalida waxa dib ku ah culimo badan oo ku jirta inayna waxba qorin inta hadda doctor oo meeshan fadhida oo magacyadooda la idin tiriyay ninkaas magister iyo doctor uu soo qoray laakiin kitaab matbuuca inta haysa waa naadirin way yar yihiin doctor Adam Ali Shaacali baa kamid ah dadka hadda kitaabada alifay oo kitaabadooda matbuuc yihiin Soomaalidu athar kama tagaan waa ahmiyada kitaabkeeba kamid tahay waa tashjiic liducaat waxa hal qoro ma fiicna in halka dadka lagu amaano laakiin nin waxa fadhiya meeshan hadduu dhaho kitaabaan qori caalamku ay on fajic oo la dhihi warkan xaqu ku qarsoona doctor Abdullah Niyo waa nin tafkiirkiisa iyo taxliilkiisa iyo maartay laakiin kitaab noo soo saar lagu ma karaayo culimada ugu weyn qaar waxa jira haday kitaabo qoraan rasaa'isha culimada caalam islaami ay nasriyaan hadayna ka fiicnaanin u dhigmi lahaayeen baa jira marka sheekha inuu baadirada qaato oo dad badan hadda ay bilaabaan bal waqti aan ku bixin tashjiican lil ulama al akharin sheekhu mal ban khair allah siyadana hadii hadda maanta oo ta'alifka waqti badan ku bixin lahaa rasaa'ishiisa caalam carabi waa laga yaabi lahaa halkan bay wada fadhiyaan culimada dakatirada haday qoraan hadda maanta mu'allafat ay qoraan la dhihi lahaa ma sha Allah marka horta bal culimada kelmadaasna ha qaataan oo maartay ha qoraan kitaabada sheegal dhahbal hal ugu dadaalo kama tagin doctor Abdi Aziz oo fiqiga iyo usuushiisa hadoo maanta taabto maartay carabtu ay naga qaadan lahaayeen Kenya ka qaadan lahaayeen inta tan ka baxay ikhwaani hadalka waa la iga dambeyn nimba Madiina khimar intuu keenay waxaan madaxa haweenku ay saartaan kuwii midmadooba ka gadmi waayay abyaad buu ka tiriyay aad garanaysaan qul lil malihati fil khimar al aswad ماذا فعلت بعابد متنسك متعبدي بناسك متعبدي أفسدت عليه صلاته وصيامه لا تقتليه بحق رب محمد ردي عليه صلاته وصيامه لا تقتليه بحق رب محمد maxaan ka wadaa sheeg haduu qiimo leeyahay ashcaar in laga tiriyo waliba sheekh ibn sayyid maanta oo qabtan ashcaar ka tiriyo yaan jeclaan lahayn wasiyan ku khatimi marka wasiyati waxay tahay kitaabkaas mu'assasooyinka islaamiga ah tacliimi iyo kuwa kale oo iska maraajiciya maktabaadka iyo in ay maartay قل للمليحة في الخمار الأسود أيضاً
oo la dhigo oo la akhriyo kitaabna waa marjic kitaabna muqarrib buu u soo badaa anoo sheekha markaan la fadhiiso waxaan kitaabkan بإذن الله الكريم معهد الفتح وحنقص درنا مادة عن كينيا عن كجهة أرض الغبري جغرافية كينيا تاريخ الإسلام في كينيا تاريخ الدعوة الإسلامية في كينيا واقع الدعوة الإسلامية المعاصر أرض أي بالفهم هيان صوبته أو حبذا أرضين ثانوي كبحان هدي اللي هذا تحدث عن العمل الدعوي في الجامعات سو هذا الشيخ وشاغ يسقف رسالة أي صمرته لقيها بإنه عندها كلا قاضي وهذا وحبنا لما برين كتابك هلا قاضو مكتبوينك هلا ديغو مكتبوينك مدارس مرجعان هلا ديغو مادة هدي مادة كلا أو سيادة الجغرافية كل ويكون قرنتها مدارس إسلامية لو نحضر كرو هلا قدرو كولجية هلا جايو دراسات عليا ساد جامعة المستقبل إيو جامعة الإسلامية جامعة إيه هجيان كتاب كاس أو كلا أرضي السنة الأولى هلا سي نبذة عن الإسلام عامة كتاب كنا وكهلي نبذة عن الإسلام خاصة أو مرتي واقع دعوي مؤسسات كيسة إن لو قرروا وحنده لا قولك ختاما جزا الله المؤلف خير الجزاء ولكن شيخ حسين برال إبراهيم برال ورنتي سيد أي دهان حلو يمربى أن إسلاسه مري سأفرك مدة أن مرتي إسقال شقيني في الدعوة إلى الله جامعة الإسلامية أي كسيه الرئيسي اسكو كليتنا أنا هين إن كسو يجوه الرئي نبقى حلقة شيء وحجري هبل بيجري هبل مرك والله هبل وابن قرن بيجري نكاسا حولها بن إسراء عجرة سالي إن لما كاسا حول إسراء عجرة سوي جوينها أد بيجوينها مركا إن كسو شخصين أد يجوينها لكن أنا صوصا معاصرني وحبر الشذي هي دعوتي هي ملكسة جزاه الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير الجزاء وأحسن إليك في الدنيا والآخرة فضيلة الدكتور مركا الله يدين بركيو نخبة أدياد معركتي وعجيبة يا سقوط ميت ورنتي إن كل جودنا عندي كرونو إستن بيكسودة شيدان waxay ku tusinaysaa reenoistan ihtimaamka ay siin hayaan taariikhdooda iyo taariikhda dalkeena Kenya oo ay kamid yihiin marka mid baan insha Allah taala u siin doonaa kitaabku wuxuu yaalaa qaybta dambe waxa halkaas lagu iibinayaa qiimihiisuna waa 1 shilin weeye marka waxaan dhamaan ku dhiirigelinayaa dadka ka soo qayb gala xafladan quruxda badan inay soo qaataan kitaabka oo qof walba kitaabkaaga inaad soo qaadato oo isha la raacdo taariikhaha muhiimka ah ku qoran waxa weeye التعريف بدولة كينيا جغرافيا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا كذب مبالغة شكين دون تاريخ الدعوة الإسلامية في كينيا دخول الإسلام إلى كينيا تاريخ دخول الإسلام في كينيا هجرات المسلمين إلى ساحل كينيا وقيام سلطنات الساحل الإسلامية كذب الغزو البرتقالي على ساحل شرق إفريقيا كذب النفوذ العماني في المنطقة كذب اقتسام الغرب إفريقيا واحتلال بريطانيا لكينيا كذب الواقع الإسلامي في كينيا إلى آخره وقضباء دي هذا قروح بضن إن شاء الله تعالى انت هذا اللذا أي سعودان بان ربا إناد قفولو إناد كتاب كاغا أتسوق هذا كذبنا علماء وركو هذا دقيسته وحان كلون سو دوينايا oo duyuubta kamid ah طيب وحا فرحad inoo ah معهد الفتح oo sheekhu uu ka yahay garwadeen Dr. Ibrahim Farax in uu ballan qaaday inuu qaato 20 nusxo oo kitaabka kamid ah waana mubadaradii koobaad ee kitaabka lagu qaadanayo waxaan leenahay jazaaka Allahu khayr jazaa wa ahsana ilayka shicirku sheegahayna waa meesha kama marno waa diyaar wallahi باذن الله الكريم وان شاء الله تعالى قصيده yar baqaacin looga siin doona inta ka hor waxaan rabaa mashaayixda inaan ku hormaro maadaama nuqbaduna ay aad u tiro badan tahay
waxaan ka codsanayaa in laba daqiiqo aynan dhaafin. waxaan soo dhaweynta ku darahayaa oo nagala soo qayb galay qoraagi weynaa ee adiibka ahaa Xasan Qorane. falyatafadal mashkuuran maajuuran. aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa isagana, allah barakeeyo. marka kelimaadkii baan hadda sii wadanaynaa. kelimaadka waxaan ka bilaabayaa Sheekh Cabdiraxmaan Wardheere sheekheena. falyatafadal mashkuuran maajuuran. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيع بانا دحق لي horto beeca iyo muxaadaraadka hal iswaafajiyo kutubtana ha dhammaynina dadka wada gadan rabaane naga dhammaynina ma buuxa dadkan waa badan yahay qaar baa 10 qaadanaya 20 Ibraahim baa bilaabay ma sha Allah. horta marka koobaad waxaan leenahay sheekha muallifka jazaahu Allahu khayran barakallahu fi juhudihi wa nafa'a Allahu bihi al-umma. Sheekh Hussein Ibrahim Buraale Sheekh Ibrahim ugu horeeyay wuxuu yiri aqraan baan ahayn oo isku jiil baan ahayn, laakiin aniga wuxuu yahaa macallin mudarris buu yahaa sanadii thanawiga markaan ku jiray madrasada najaax al-islaamiyya. waxaa halkan fadhiya asagana Sheekh Cabdiraxmaan Dheere xafidahullah oo shahaada cadaadiya asagana igu saxiixan xilligii Sheekh Maxamed Awal raxmatullaahi calayhi markuu shahaada cadaadiga siinayay ardayga mumtaaska ah yuu kor u fiirinayaa oo fadhiya asagana anagana kor taaganahay markaasuu naca salaameynayay annaga ugu dambeynay ama wuxuu shahaado siiyo. marka ardigii uu arkay inuu mumtaas yahay indha cadcad buu ahaa iyo wac ku siinaya baaraka allahu fiikan uu raacin jiray. marka culimmadan runtii qiimaha badan muallifka iyo mashaayikhdan fadhida meeshan halkan hadda aniga la gari fadhiisiiyey waxaan u malayn gaaris baan ku dambeeyey xogow gaaris baa la xaq siinayay markaan halkan la fadhiisiiyey Sheekh Dr. Cabdildiif iyo Axmed Cabdildiif iyo Sheekh Cali Sow iyo Sheekh Cabdiraxmaan iyo Sheekh Cabdisalaam Sheekh Maxamed Miskiin asagana runtii qiimo badan raggii muassasaadka gaaris ku soo barbaaray kadibna dad badan barbaariyay way Dr. Ibraahim Faarax oo nashida dacwada iyo muxuu ahaa shidada dacwigaba iyo culimadaas fadhida meeshan faraha badan iyo gabdhaha qiimaha badan ee daaciyaadka ah dhammaantiin horta waa salaamantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. taaliifkan sheekha kitaabkan u alifay waxay salka ku haysaa uu hiigsanayaa inuu soo galo hadalkii nabiga sala allahu calayh wasalam ibni aadamka markuu dhinto camalkiisa waa go-ayaa waxaa ka mid a waxaan go-aynin 3 shay cilmu yuntafacu bihi in la akhriyo keliya maaha cilmiga ta'liifka yaad moodaa inuu ka xeel dheer yahay ama ka baaqinimo badan yahay tacliinta, inkastoo tacliintuna iyadoo sanadkeedii iyo silsiladeeda ay wadato nabi maxamed calayhi salaam cilmigii uu saxaabadiisa baray way waxaan haysan anaguna. marka intaa way isla socdeen taaliifka iyo tadriisku. marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacala inuu cilmi yuntafacu bihi ilaah uga dhigo subxaana wa tacaala. jaamacada islaamiya markaan dhiganaynay waxaan booqanay sheekh maxamed cabdalla soomaal sheekh alcalaama almuxadith ee makiga ahaa soomaalidan ahaa raxmatullaahi calayh. hadalkiisa waxaan ka xasuustaa inuu yidhi annagaa duqownay annagoo waxba alifina wax alifa wax qora waxa la qoro dardaarankiisii buu ahaa. qoraalkuna waa mawhiba ilaahay uu siiyo qofku la doono waana tawfiiq min allah. nin walba meel buu ku fiican yahay xagga nashaadka dacwiga oo ka qayb qaataa. qofkii mawhibada ilaahay siiyey oo qalamka ilaahay u fududeeyayow wax qor, gaar ahaan raggiina dhallinyarada akaademiyada ee carabiyada iyo luqada u baxsan tahay hala dadaalo. jazaakum allahu khayran. waxaan leeyahay sheekh cabdilxaliim qaacadan waxa fadhiya waa reer Northeastern. reer Northeastern door weyn kamina qaadanin ayagoo dhan waa reer Northeastern wax meesha fadhiya. nin walbaba in buu ku leeyahay Northeastern sooma. marka haddaad fiiriso dadka manasada fadhiya iyo kuwa kasoo horjeedo nin walbaba in buu kasoo qaatay Northeastern uu ku leeyahay. maxaa yeelay masnaca tacliimiga ee dacwiga wuxuu yaalaa 3 magaalo Gaaris iyo Mandera iyo Wajeer. halkana midhihii iyo tanfiidkii baa yaala. marka gobolkaas waa gobolkiini waa meeshii wax lagu soo bartay
meesha gabdhaha laga soo guursan jiray, waa meesha kabaadhooyinka laga soo qaadan jiray, waa meesha ilaa iyo haddaba idinka ila sugayseed u tihiin muxuu ahaa raayidka iyadana ini ah marjaca ini ah wixii nashaad iyo tashjiic iyo dhiirigelina mar walba la garab taagnaada raggiina culummada ah ee meeshaas jooga ee qoraxda kuleelkeedii kaneecadaba u sabray xaq iyo yad bay nagu leeyihiin hala ogaado idinkuna doorka aad wadaan ee magaalada ka wadaan iyo dacwada ku faaftay adduunka oo idin madkhalkii ay maraysay baa taagantihiin doorkiina waa door laba iloobaana waxaan leeyahay sheekha jazaahu allahu khayran wa baaraka allahu fiih mar labaad iyo mar saddexaad waan u hambalyanaynaa waan u tahaniyanaynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الله كبركيه هذه آيات بعد ما سنتهي الشيخ وحيري باعي وحال سكر حوضا محاضرين كوحان عطسنا هي إن هل يلبلب ونلو يستاجو دتك أنت وضبطنا إلى فديان الله يباركيه maaragtay waxyaabaha cajiibka leh kitaabka ku yaala waxaa ka mid ah Soomaalida iyo markii xorriyadda ay dalka Kenya qaadatay kadib ku darkii lagu darahayay gobolka NFD ee dalka Kenya iyo xaaladii ka dhalatay iyo siduu waaqic ahaa si fiican sheekh wuxuu qaadaa dhigayaa xataa siyaasatul qamac maaragtay taliskii Daniel Arap Moi uu ku hayay deegaanka NFD iyo dhibkii loo geysan jiray dadka ama ha ahaato maaragtay dad la laayo ama haween la kufsaday ama xataa ibaadatu almawaashi yani xoolaha oo xataa la laayo ilaa kumanaan kun ah maaragtay si fiican oo qurux badan buu sheekha uu qadaa dhigay waxaa ka mid ah Wagala Masaka ibaadadii ka dhacday Wagala iyo Gaarisa xataa maaragtay dhibaatooyinkii ka dhacay marka waa taariikh aad iyo aad u qurux badan oo loo baahan yahay qof kasta oo reer North-Eastern inuu maanka ku hayo og yahayna marka waxaan rabaa haddana inaan kusoo dhaweeyo دكاترة joogta فضيلة الشيخ دكتور أحمد عبد اللطيف فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب كان سيدي لقشة لو معرفة الآيات لو قشة كي وهي واحتوى وكوكو يهاي دكتور إبراهيم ونوقشة كي كم نقنينه هورن وانو آخرني حدنا أسجع نوفيلن كتاب وحكو جرو إنه أنا معرفة أن أجارنه كتاب حقوق الثلاثين هاي قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الكتاب أصل كيسي وهالكاس تنقل أنا وحماد وفرح سنة هاي حفل دهن إنك سوق يبقلو أنا شيئا هاي أمرون أي تهيبة دكتور كوجوه رأي كينيا أو ما أردت أنا نينكي هذا أو بدوت قبان باسو استيقرا أنا هو قامنا إما توهد دكاترة شاعر كان ماشي وكل شيء أنا هو قامنا إنك سوق يبقلو حفل دلو دافور كتاب كان الدعوة الإسلامية محيا لي مركان دكتور قاتي وحوايدت كان أنت بدل ما دلني سجاشني لحدي مرك كينيا إما ذي دكتور أحمد عبد واكنه دكتور إبراهيم كل ماجستير على ديارنا مركز حتى ما أنتوا هالمغلاية دكتور فلان وبشار وين رنتي يعني أنا مركز الصومال واحد هذا فلحد نينكي أو ماردتك إن أنا فلحد هاي يا أو أنا هاي نين مارد فلحد واتقاني أفوفر واي فلحد زل ما يقانو فلحد واي مرك أنا فلحد بنا يومان تبوها بقولال كجداشي أو صو إمادين وهوين هرتي وحافظيا دمر دكاتير أنا معلن كذا نين كان كمدة والشيخ كمدة هدا عمره هدا السلام اللي وانكو جناه لها
marka dakaatir badan oo aniga macallin aan u ahay sida doctor Daawud marka yani had aniga waxay fiicnaa in iska fadhiisto maxay la dakaatirada hadii shaqo wadaan laakiin alxamdulillah hadii maanta mar hore soo sheegay lahaa kulli qasiida oo maartay wanaagsan aan sameyn lahaa laakiin haddana kitaabkan taqriiban uu sameyn doona hadii Ilaahay raado run ahaantii kitaabkan waa sidii maartay lagu sheekay oo laga sheegay aniga nafteeda kitaab aan qoray oo maqaal weyn ahaa waxa waaye 10 sano ka hor marjaa aan ka dhigtay mustaqbal luqada carabiga maqaal yarada ama kitaab yar ana naftii maalinta san arkay kitaabkaas mustaqbal luqada carabiga marka iyo dukhulul islaami fi Kenya inta soo dhan marjaa buu ahaa haddana run ahaantii marjacaas maanta waa laga sheekay in lagu qariro madaarista oo ma aragtay yani sidii doctor Ibrahim uu sheegay madaarista oo hadda North Eastern way badan yihiin ma aragtay yani luqada carabiga lagu dhigaa intooda ban 90% marka kitaabka in lagu qariro oo karaatin inta lagu buuyo madaaristi Mandera iyo ma aragtay Wajeer iyo Garissa oo madaarista ay loo geeyo ma aragtay ardaydii la baro maxaa yeelay kitaab fariid way kitaab oo hadda يعني واحد لقى شيكينا معها قف كسب الدكتور إبراهيم وقول شيكي جوانب بسيطة لكن وحيالا كهوس جير عيا بدن انتو كتكت إنير وكتابتي مرك إن شاء الله تعالى نينكا مارتي ودتكوا بدن لو دقيقة لو دواء دافني شيخ يقول ري طبعا 5 دقيقة قاتي مرك وعال ربا نينكا سبب لو دقيقة يدافني أنا مغرب سودو دتك جوجان ويبدن والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أحمد عبد اللطيف خير الله سيو ودكتور فلحظة runtii meeshan xafladan yartahay munaasabadan yartaa hadda dakaatiradii 20 baan kusii cagacagaynaynaa waxaan kaloo soo dhaweynayaa doctor Axmed Cabdi oo isaga nagu soo biiray waxaan kaloo soo dhaweynayaa doctor Cabdallah Almudarrib waxaan kaloo soo dhaweynayaa Sheekh Tayyib laftirkiisa waxaa la yiri doctor buu gaaray doctor waa samaysan marka bas kaloo doctor baa ku soo biirtay 20 baan kusii cagacagaynaynaa oo doctor intan yarta ah joogta ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir badan ha ka siiyo dhammaantoodna waa reer North Eastern ama North Eastern bay waxbarashadoodu ahayd marka haddana waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo fadiilada sheekh doctor Maxamed Calasow falyatafaddal mashkuuran maajuuran. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. marka koowaad أنا ميه دكتور نك كتاب قرأ دكتور ماهن دكاترتنا waxay qoranayso bandhigaan aan rabnaa marad سعد خالي فليرني امرؤ خاله oo kala way macna intaas kaftanka sadaan ka gudban إخواني سدح النقطة يربان إن شاء الله ولبدا دقيقة ما ضافينا أما سدح دي يعني وإضافينا كلمات كل شيء جاي فصحنا ويدي سنة ما اللي رفقنا كدو كذا دون هي بارك الله فيكم أريرون اللي حرير تدرتين أرماها سدح هذا النقطون كهذا يوحوي أهمية كتاب كأولي هاي محيط هاي محتواها جودها يسوى كجرو وما كهذا لكن كتاب كسيجود هان وحو كهلا بلد كيني واقعنا وكتب عربي ولغة عربية وكقرن وتاريخ دينا نوغا هلا يسدد كيني ثقافة إسلامية عربية أمبريني كتاب كلا أو مرجع وهو قمر مانتا يسدد كيسي أي قرين وبلد كي لما يلهرت النقطة داس والنقطة كوباد وأهمية كتاب كا. ثانيا كتاب كهذا البلاغة الإيجاز وحلي رهاجرته وكتاب معلومات بظن جمعنايا وحكو يعني هذا الكيس وقابيه معلومات بظن وآدو بظن نخسين أيا كويل وانا قابيه هاي أو آد بأسو قابي مؤلفك حفظه الله وأرنك له مهمة جدا. ثالثا وحو فري باب عصبان وأبوابتي دعوذين كمدة دعوذين يعني شيخ مركو كهلا مثلا مراحش الدعوة أو هذا معاصرة خلواتك أو خلاوذي معنا دكسيالك تحفيظ كهاي إيو مساجدي
duruusta ka socotay iyo wuxuu ka hadlay madaaristii nidaamiga ahayd oo la sameeyey saddexdaas uu ka hadlay baabka ta'liifta marka oo waaqici jiray inta wax laga qoro thaqaafa fi luga alcarabiya lagu qoro waa baab cusban soo maaha oo jadiid oo abwaabtii dacwadeena ka mid ah yacni waxa weeye fawaa'idda kitaabka uu noo keenay ayay ka mid tahay waa saddex arrinta afaraad oo kitaabka noo keenay waxa weeye oo faa'iidada muhiimka jiddanna dhalinyarteena yaryar oo 20 iyo wax ku dhow 30 jiryaalka ah waaqicii ay soo martay dacwadii iyo duruuftii ay ku nooleed xaaladii ummadda ay ku jirtay ayuu ku baraarujiyay runtii ayaga raggan dhalinyarada waxay arkeen dacwadii oo cirka maraysa madaaris la furay jaamacad islaamig la furay meel wal muxaadara laga sii jeedinaya sida ayay arkeen laakiin maxaa ka horeeyay weliba sheekh xuseen 30 sano weeye wuxuu kitaabka uu khulaasada ka sameeyay marka 30 sano maadigi wixii yaraayo ka horeeyay inay dalabada ku baraarujiyaan runtii waa ahamiyad muhiima jiddan oo dalabatul cilmiga inay ku baraarugaan laga maarmaan ay tahay jazaahullahu khayran oo u baahneen inta waxaan maleynaa inkaarka ma jira waa kalimaad musallama yani dhamaantood yani kitaabkii oo waaqiceena ka hadlaya bithaqaafa luga alcarabiya maxaa la yidhahaa kitaabkii oo mulakhas oo gaaban fat baab cusuban oo noo furay shabaabkii oo maadigoodii dhawaayay oo naga tagay ku baraarujinaya dacwadii xaaladii ay maraysay arrintaas waa inta nuqdadoo aan ku baraarujinaya oo kitaabka ahamiyadiisa aan kaga baraarujinaya waxaa ii labeeyeen islaamka waqtiguu soo galay iyo tansiirka markay soo galeen duwalu tansiir markay beledka soo galeen waxa ay ku sameeyeen oo kitaabkan wax badan uu ka tataabtay waxaa ka mid ah hawiyadii luqa carabiya inay tirtiraan bay isku dayeen luqada carabiga eedo wadanka meeshan kilax maayn meel walba meel kasta oo yani waxay isku dayeen inay hawiyada luqa carabiya tirtiraan soomaali waad ogtihiin 74 waxaa la bedelay luqada carabigeed wixii iyo qoraalkeedii oo dhan baa la bedelay oo far soomaaligan xuruftan laatiiniga noogala bedelay rag dhalinyarta warmaayaan intana qabla dalika hadda bambaasi iyo markaa tagta derbiyaal meelo badan waxaad arkaysaa luqada carabigeeda af sawaaxili ku qoran oo sideed aad arkaysaa hawiyadeenna islaamiga ahayd oo carabiga ahayd ayay qaswi ku sameeyeen oo tirtireen waxyaabaha ay nagu sameeyeen waxaa ka mid ah raggii yani ilaan dhulka ayagaa qabsaday raggii ashariyiinta ahay dhulka way buuxeen raggii aimada ashariyiinta ahaa iyo barofesoorada ah dhulka joogay waxaan jirana laga soo qabtay madaaris iskuulla ay fureen iskuulladii ay fureen cunuga markuu galaaska afraad gaaro macallin baa laga dhigay wadiifana waa la siin arrintaa ma la socotaan waxaas ayay sameeyeen raggii barofesoorada ahayna darishidaa laga saaray yani iska daaya meel kale mandera police stationkeeda ku yeeli magaalada mandera waqtiyaa 83 ayaan police stationka galay waxaan isla soconay sheekh maxamuud macalin cabdikariin dad badan way garanayaan sheekh maxamuud belebeli ayaan isla soconay nin meesha ku jiro oona booliiskana markaas ka mid ah oday oo sheekha walaalo yihiin ayaan meesha ku siyaaranayni sheekh ani kuma baraarugin wuxuu i tusay iridda albaabka laga galahayay tiirka ku yeeli waxay ingiriiska ku qoreen oo ku yeeli mamnuucu dukhuul macnaa dadka thaqaafa carabiya ayay lahaayeen thaqaafadeena carabiga ahayd dadki inay fahmayeen darteeda loogu qori mogta oy luqada fahmayeen thaqaafadii iideeda carabiga ahayd oo dhulkeenna taallay waxa waye waa lala dagaalamay masxiba ay gaaladii ku sameeyeen inaan soo noomalayna annagaa nagala sugaa bacda hada alisdihaar dabcan waxa ay nagu sameeyeen waa fara badnaayeen waxaa ka mid ah waxyaabaha ay nagu sameeyeen madaaristeeni mutanaqilada ahayd oo zaxfiga wadiyo ka africa oo dhan ay kusoo islaamayeen oo looxdii iyo qur-aanka iyo madaarista socdeen in la celi soomaalida waa ogsantiina u malayna dhulkan kenya magaalooyin badan oo soomaali degeen oo asaaseen baa ka mid ah oo markii dambena la celi soomaalidii haddana qaar uun ku dhex xeriyo aad kabsamadaa ka mid meelaha aan tagay oo taariikheeda haddaan inkaga sheekay ilin inka daadanay hadda waqti ma lihin waxaan damsigii marka nagula sameeyey oo hawiyadeenna la tirtiray iyo maaragtay wixii aan ku sugnayn ayay na tusinaysaa marka inaan dib u soo celina
waa waajib noo yeella oo maanta nagala doonay. warka ugu dambeeya leeyahay waxa weeye haddaa adiga waktigaaga ka faa'iidaysan wayda rag kale ka faa'iidaysan. muslimiinta sheekha uu ka soo taariikhiyey oo Bambaasi iyo dhulkan haystay, yacni matalan hadda ibn Baduuda waa garanaysaan waqtigii uu rixladiisii kitaabkiisa asaga ma qorin, dabcan sheekadiisa baa laga qoray oo Madiina Safaas markuu ku noqday ayaa la qoray rixlada ibn Baduuda, asaga waxba ma qorin, sheekadiisa laga qoray. waqtiyaha uu Kenya imaaday jasiiradahan Bambaasi iyo Kilwa iyo meelahan markuu imaaday taqriiban waxay ku aadaneed 850 meelahaas hijriga ahayd. 700 iyo maya 700 iyo 50 meelahaas ayay ku aadaneed. laan ya xaqiijiya arrintaas. sheekha wuxuu ibn Baduuda wuxuu dhashay 705 soo sidaas ma 25 sano asoo jir Faas ka soo baxay. dhulkeena kuma soo bilaaban meelaha ugu dambeysay soo imaaday ay kamid ahayd Kenya. 25 sano rixlo ku jiri. markii hore dhinacaas oo Suuriya dhulkaas uu maray waa xajiyay, Anadoli dhulkaas iyo Turkiga dhulkaan uu maray waa xajiyay, Sindi iyo Hindi iyo dhulkaas uu aaday, uu ka soo noqday waa xajiyay, Yaman dhinacaan uu soo aaday. rixladiisa ugu dambeysay oo Yaman iyo dhulkaas soo aaday ayaa maaragtay Kenya imaaday ninkan. marka haddaan lahaynin nas cad oo isaga caddaynaya waaqic ahaan waxay ku aadan tahay waqti waa rixladii ugu dambeysay oo Yaman soo maray oo Soomaali soo maray Muqdisho. Soomaali magac Soomaali ma sheegay, Zayla iyo Muqdisho ka hadlay iyo wixii uu ku soo maray uu ku soo arkay. oo Bambaasi imaaday markii kadib uu Bambaasi imaaday. dadka Bambaasi iyo dhulkan joogeen iyo muslimiinta meeshan joogeen tacaamulkooda ma malayn kartid. hamigooda dhan waxaas moodaa haddaad fiirisid dacwo inayn dhulka soo gaarsiinaynin oo غزوي جنوجت كفارتود دولكان جوجين غنائمتودي iyo غزويgoodi inay ku mashquulsanaayeen. laakiin qarbiga ay imaadeen way ka faa'iideysteen maxaa la yiraahdaa dacwo iyo tansiir bay dhulka geliyeen. dhulka dhanna waa la wareegeen, thaqaafada carabigeedna waa ka tirtireen. marka adiga haddaas waqtigaaga ka faa'iideysan wayda raga ka faa'iideysan aan hurdada ka kacno on waxaan dadkeeni umadeeni meel walba ay ku dagaalamayeen oo dhibaatadan ma haysta ma ahayn. gaala dhulka nala joogta akhyaaray shucuubta dhulka nala joogta Kukiya waa shacbi aad u badan, Jalwo waa shacbi aad u badan, Kalenjin waa shacbi aad u badan, Masai waa shacbi aad u badan. ma dagaalamaan. annaga waa isbaabi'inaynaa bedelkiin annaga aan shacbi midaysan oo ummadaha wax la qaybsado noqon leen. annagii baan waxba soo galeen oo istirtirayna waxaan ku dagaalamayn lama yaqaan. dhulkeenina waa cidla. ummadeena inaan wacyi gelinna oon wacyi u samayna oon maaragtay bal waxaa dulligaa iska kor qaadna waa ku qasbanna. kalimadayda ugu dambaysa waxaa weeye Sheekh Xuseen saaxibuna zamiiluna Sheekh Xuseen oo waqti badan isla soo joognay waxaan leeyahay sida aad 60 ilaa 90 kitaabka risaaladan u qortay Allah ku barakeeyay ragga kale wixii kugu kabayna kugu kabeeni 90 ilaa waqtiga hadda la joogana wixii la soo maray ahdaad badan baa jirtay kitaabku idaafay oo ku dar. waxaan nin walba inaad u furnaadaan rajaynaa كي واقع كي انت شيخ كهذا لكل احماين ويجز كي ويحكي كانوا اللي قدري كره هنا يرجع الدكتور آذن مثلا دكتور آذن شيء عليه مركو رسالة دي سقوري واقع الدعوي قالوا كان إيو مارتي أفريقيا لانجيس كان وحبلهم بوكا قري الرماها سكول إن لو بريروج وقدم بيست الكلمات دي دوحوي وحنكب ورينا ضدك صاحب لنا ورجع مدارستي وحول إلى ميل البان جوجناي كثقافة عربية المهنة صو ثقافة وما آخر مدارسته كتاب كان ثقافة كدقنا ساي المهنة نوجو براروجان أو واقعنا نوجو براروجنا عن ثقافة أن كدقنا أنو كلمة أنت أصير إن كلمة العلماء أن يكون هذين إن إضافة يعني كنت لقالي الله إذا بركايا إن إذا أنتينا وين كعدسنا سهوري وعدسدي بارك الله فيك. ما شاء الله بارك الله فيكم. وهذا الآدي قرح بدن إضافة صدق وشيخ كهضينا وحللية هاي وقرها يابة بإذن الله الكريم. waxaan hadda kelmadda siinayaa fadiila sheekh Dr. Cabdiraxmaan Dheere oo maaragtay runtii taariikh dheer ku leh dacwadan islaamiga ee dalkani Kenya iyo guud ahaan North Easternba. sheekha bal inuu maaragtay wax yar oo nubda ah oo taariikhdaas ku saabsan naga siiyo ayaan ugu soo dhaweynayaa. falyatafadal mashkuuran ajuuran. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله هذا لي وهذا الكل إسكاد هذا المحل رأسون لو الدعين وإسكاب طابة. صراحة كتابك كان أنا هرت الدكتور الشيخ محمد يورو كان أنا دكتور من شيخ عبد الرحمن هاي دكتورة مقالا صادرات ذاك الدكتور حد هاي صوت البلغ أنا مع المهابة أما وقتي هاي كل واحد دكتورة هايست إلا ما شاء الله ضجر بخبح سنة دعوة كينيا الشيخ أبو هذلي أنا قريبا كسو قاري جيل كوبات بان لمبرتو وهن صادرات ذاك كان وقتي هن واحد جواب هذا ما قرنا ولا ما هنا إن عندك هنا ما هو ويل اللي رانا هولي maxaan garanayaa markaan Nairobi nimid ayadoo madrasa la yiraahdo Majagan joogna ama mugaar riyaada la yiraahdo hadda sheekhu wax ka qoray oo inta aan u buuxiyay ayaan joognay 6 ruux oo Soomaali aan qism daakhil ku jiray bas 6 ruux aan ku jiray ka dambe inta madrasa kala tagaan bay dadka maxay gaareen 6 laakiin 6 ruux aan ahayn saddex Soomaali aan ahayn hal qoran waqti isna boodna loo bixiyay مدرسة هكذا سوق قبل الشيخ صهيب الله يذكره بالخير ونولي هاي أي نقبل هوني مركب وقتها أيضا مدارس محاكا جرتي علماء لو صدري لحد أهيد كينيا شيخ محمد هادي أو كتوي لقي شيخ فتح الدين محمد الرحم الله ونحرد وحورنا ويدنا مادينا أو مشاكوس لقي شيخ محمد أول أو قارس لقي الشيخ صهيب وأنا معلن خاينها نيروبي لكاني انتاس بأهان دعاء لصادري هل روح صومالك هل إثيوبيا وهاي انت كان هندي باكستان بأهان مدارس هذه محل غب الله بألف باء واسو هذا الشيخ عرس وشيء اللغة العربية ولا رد على ما يسكب بعضي ويعرب قاضي ذاك سكول جهل الله بحي أما سكول أم وحوم يقانو يسكب جوا عربي ماله علماء ماله وحنا ماله الحمد لله ويسوق عبي maxay ku qaadatay 10 sano taqriiban muddo ku dhow inay soo kacdo meesha la soo gaarto ana maxaan garanayaa madrasada Fath walaalkii Ibrahim haduu ka sheekeynay oo 2 qol ah iyo midda kale intoo Mandera oo Nuur Islaam oo 2 qol ah iyo madrasada ku taal Katuy oo 2 qol ah iyo taano 4 qol ah 5 qol ah midda mudaqas ku taalna 2 qol ah meeshaas maxaa lagu akhrin jiray min uuli ibtidaa'i إلى 5 ابتدائي كقرب حقن كرمله يا أخنا معلم الله معلمين تو 4 دك وأخرسه أولى ابتدائي ثاني ثالثة رابعة خامسة دي اللي قال معلم ماله وين جوكسة تدرست لكن بعد فترة من الزمن الصوت الصوصعو دعوة ماله بين بيجارتي والسكول حرمي محل سمي واحد يرادو بورد أو إست أفريكا إديكيشن إلا هذا هذا سمي دول ده اعترافتي سب كم نمخلو يقانا على فري من محمد صفر إلى فري محين نقطة ماشى 6 ولك الوفري مال جرتين نقطة دعوة يسوس عتي دتكي مدارس هتكبح بحاي يوحي مالك لك يمد أو مساجد حكومة برتي أو ورقة هيري كري أي وحبر شدونتي جامعة دال سكوتي صدّني يدور روحنا هين أنا ما كان جامعة تجاي صار ما هذا كجرت أي والله بقول دون كصباح لسكو يمد أو دتكي وحكة برتان dadka ayaa soo noqday soo noqodka soo noqonaa tadriiji waxay madarasta ibtidaai laga qaaday acdaada la geeyay thanawi la geeyay i'tiraaf loo helay jaamacadaha la kala aaday hada doctorada wada haysateen oo dhan waa juhuud ku timid muddo 15 20 sano ku dhow ayay ku soo gaartay maanta inaan alxamdulillah haysan 20 30 40 50 doctor oo luqadan aan ku hadlayo oo wax walba qabanayo marka sheekh buraale kitaabka markuu qoraa horna waan waa kitaabka hadda intuu dabcinayna waan waa markii uu magisterka xaadirna marka mukarrama ayuu soo sheegay ka qoray kitaabkan risaala marka midda aan aniga dadkii hore ku raacay maxaa weeye aniga hadda muddada dacwada aan ku jiray dad baan wax baray wax baan waan rasaa'il waan qoray waxyaalo yar yar waan qoray laakiin kitaab intaan u fariistay kaala qorbi isma dhihinba waa cudur Soomaali qabto ma bisnimo kaala kitaab qor ma bigu soo dhicin kaala kitaab qor wax kaluma horta dadka ogaada كتاب قرطان كلا بنا عقوت ماذا أنا مقتي أنا أنصاب حي ذاتك محي أهان بدايات الدعوة لجوي ذاتك محنقرنا يعني جارس مركان مت أنا محاضرك بحي بوليسكا محاضرك بحي سؤال الله لبنا اسكندرية محاضرك بحي يوس
oo qof ducaadii kale waxay soo gaaro soo haleelay ayna jirin sheekh maxamed awal oo waayeel sheekh maxamed raajix oo waayeel ayaa ila joogay anigu ma dhalinyaro dhexorda ahay ka dambana alxamdulillah waaxid bacd al-akhra limid sheekh cabdullaahi boole iyo gurubkaas horta ii yimid dacwadu way soo socotay maanta meel fiican soo gaartay ha soo socotee maanta meesha ay soo gaartay dadkii ka wada lahay waa adinka annaga haddaan iskaba taqaacudno ritaayir garayno oon iska tagno nimankii dacwada cabbay biyaheeda midhaheeda waa adinka oo la rabaa inaad wadeen laakiin maxaad moodaa dadka markuu isku batay soomaalida maxay tidhaahdaa xataa carabta way tidhaahdaa faanuusaha oo wax iftiimo baashaan faanuusta la yihahdo baadiyaha laga isticmaala badiga iyo tuulooyinka way iftiintaa hal faanus haddaad meel dhigto waxbay qiyaastii iftiimini 5 ku soo dar qiyaastii ma dhaafayin 10 ka dhig qiyaastii ma dhaafayin iftiinka haddaad meel isugu geyso wax u tara male muxuu ku fiican midba meel la geeyo ducaadii meelay ku aruureen meelay iskugu tageen iftiinka maxaad moodaa inuu hal meel bas ka shidmayo madaaris badan baa la sameeyey la isku mixiro أنا قارس محن كسوتي شن يتوان مدرسة نجاح حوس إيماني أو هل من المشاركة اللي بحنا أو منهج كل واحد يحي أو لا بس خلاص الوعركن أو ده استجعاله أي أنا وقع كذا ما قولوا بالمدرسين تلافوري مدة كانت تحمل قبسين وروح حصل قبصة ورد عوض الريحة وردك وحوش شاقة كتاب كان وبداية أنا محمد بها الهابة ترتل هلا سمعه أنا العقل رورنه نكستو كتاب قرآن النوبل أما جائزة هلا سيو أو دخاترت أن ترتنسينه لما تدختار عن مرعود قرة نكل برمان قاتو جائزة هلا سيو هلا شرفه هلا كرامه أنا ساعة بدي الهابه هلا تشيع ذاك القرآن أنا هذا محقوري ويني نكستو نجيب دكتورك وقاتي محسوه سجنا درت دكتورك قاتي بل إيش شيء بحال عمري هذا وهذا كود من صدق خلافرتك على فوق قبني ما هذا ما حد يبين يسال دكاني بحلمه علما وكافة كان يا كتاب كان مال اسكدغي شهاده لغوراد كو خرينه دوركاد نغلي ما انفعس ور انت نسولنا مادو ان كتشنو سند كيبا شرف وحن شق غلو او كتابه سو قرتو هل تشيعيو هل كالميو هل وريحو حد او بخدان مراجع لو نقد وخ كيرن وانا لو شيغو هذا وصلى الله وسلم على نبينا ولكن حسين الله بركه الباب وفري الباب كاس وفري هل قالوا هل وحرودو يعني لغا وريغان دعوادان maxay u baahan tahay rag وانا لقيبي بقول ما على رسمي حوقي عن لهم ولمي فكرة ويلونتي أود ويلونتي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الريح وهذا أنا عن قبصنا كان غير هبل كان غير هبل كان مذهب فلان كان مذهب فلان نمك الهجر والصوفي ولا ما بحد كان نمك جارسة وحيسكت بيوارتي يأدون خدمة تبليغ from ألف إلى الياء لأن محاول مركو وربا وحي لغا شقينا إلههم باي حالده وحي أهد أنا نوعسا نقولنا هل اسكو حرمادو هل اسكالميو هل اسكو نتقانا هل وشقو خلافك هل سارو هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله خير الجزاء وأحسن إليك تاريخ ذاس عجيبك موجزك أكدب وحان ربا كلمة كوبان إنها سيو فضل الشيخ عبد السلام الشيخ عبد السلام ياغا مسلم بالدتكو يغانان إله سبحانه وتعالى بركيه فليتفضل مشكورا مأجورا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خير الله إنسيو مديرينا يفرقان كوير دالني مركا وانجر استاغي الله سبحانه وتعالى أيام ما هاتسكاله بعد الله الشيخ حسين إبراهيم برالي ومان تصابوها إنا ميشان اسكو إيمانو أيام ما أرتي هدنا ومهد علينا وأن أهم بلينينا وحن لنا إلهي وحن كبرينا جهودا وسمي إلهي إنه أبركه إن شاء الله أنت ضم نقول هنا عمري عافمات خير الله ما أردت أوقديو إن شاء الله مؤلف تأليف كلا إنه أسقط سمينا إن أنا أرجو وان جعلنا بين الله الكريم سيد العلماء يكون تليا شيخ حسين وان مقشة صومه شيخ حسين وان مقشة صومه بارك الله فيكم مركب ولا ليال وفرحت أد وين وحجرا نين كتاب بوك قري بوك إنجليزي تاي عنوان كيسن وحال لها داي امتي داي امتي شيخ إبراهيم داي امتي أفعري محن قري كرا يا متفارقا وأسوأ ترجم جراب إلى دكتور أحمد مركا نكا ميلو كهلاي
dadkii yuu weydi buqacada adduunka maanta ugu taajirsan ma garanaysiin buu yidhi buqacada ugu taajirsan dadkii waxay dhaheen saudi carabiya qatar imaaraat meeshii maxay brunei meelihii lacagta lagu ogaa waa ingiriiska wax dhaha meelihii baa la wada sheegay war meelahaas ugu taajirsan south africa oo dahab laga helaa wuxuu dhan markii hadalkooda bogeen buu yidhi maya meesha adduunka ugu taajirsan wuxuu yidhi waa qabuurta markaasaa lala yaabay qabuurta war qabri maxay hantida ku jirto wuxuu yidhi inta maskax ah oo adduunkan aan lagu intifaacin oo qabri gashay haddii maanta la qiimeeyo meel qabuurta ka taajirsan ma jirtuu yidhi markaasuu qoray yani kitaabka la leeyahay mut faariqan macnaahu intaad adduunka joogto wixii maskax oo ilaahay kuu geli caqli aad hayso khayr allah ku siiyo ku aad ka hadasho iyo ku aad qorto oo laga dhaxlo ha noqdo marka siduu sheekha sheegay على سوء الشيخ عبد الرحمن وأنا كان ولي دكتورة من نقولن لكن أنا نفتكر كيد كتاب ير أو لغة إنجليز كقرن أو أرض إيو تربية ذا وحكى إشارة أيان قري مصيبة وافرتن صفحات لكن الحمد لله ومطبوع برنامج لباتن سنة تقريبا أو توعية دلنيرتي وحقان وذي يعني ده يبدل كي أوسكا بابي لها كتاب يركو سماه كتاب كاس أيها هاي اللغة الإنجليزية أيها كقرنها مرك الحمد لله واحد حل ونجا يرهره أيها جرتا ولا ليال السيد الله الشيء تاريخ بالا صومري دعوة سالا صومري أنا غير بابه يباديك كاني مسجد كجامع أو جارس وقديم كان قرناية يعني نحس حنجري الشيخ محمد أول الله يرحم عليه ويذكره بالخير مركو لمنك وينا مسجد بنا إلى تضوي هايين الشيخ عبد النور عربي الشيخ عبد الله بولو الشيخ عبد الوهاب الشيخ الشافعي الشيخ معاوية الله يرحم عليه الشيخ عبد النور الشيخ عبد الرحمن مرسلي وان قرناي حر يرى تضبط الدين مالهاس يا شمع الاول يا كحرنت برقي ايده قارن وايد انتين قارن واي نولهين انا قال مساي اسك دحس حنجري marka waan iska dhageysan jiray waan yara wixii lagu qoro sabuuradana waan iska fiirin jiray sahih bukhari markuu akhriyana sheekh waan iska dhageysan jiray waxa ka dambeeyay sheekh ismaaciil wad garanaysiin oo xadiis akhrin jiray sheekh aadan caamir oo tafsiir akhrin jiray masaajid gaaris marka la sheego dhammaanba culimadaas waxaan weeyaan kutubahay ayaan ka dhageysan jirnay walaalayaalow sidaas bay xaaladda ahayd maantana meeqaa doctora la sheegaya mujtamacii maxaa isbedelay laakiin mujtamac maxaa isbedelay waxaan la joogay aadan barre 3 bari 4 bari mar laga joogo wasiirka aad buu murugaysnaa muxuu ka murugaysnaa wuxuu yiri soo wasaaradda caafimaadka ma shaqeeyo wuxuu yiri inta mustashfayaadka oo maaratay la furanayo oo la rabo in masuq looga shaqeysto Soomaaliya oo badan buu yiri aadan ما في وحكة قصد كلا لو ما فرايو سيد الله دعي لها وكان أنزليني صاب الآن قبيل لي وحيالا عين تسقطه وكان أرمهن إلهي وأوجيهي قريها أنسكجو بين إلما أنسكد لينو دين تان محي نوحة كمل لا أدهي محي قلبي جينا إيو أخلاق دينا وجود جل أدهي أنت واحد جيران العلماء هدان لهي وحنوتها لا waxaa mas'uuliyad weyn baa noo taala sidii diinta ay dhaqan mujtamaca isku bedel ay ugu tarjumi lahayd sidii looga shaqeyn lahaa taas aan noo hartay alxamdulillaah rabbil caalamiin mas'uuliyadaasna ku baraarugsanaada isfadhi iyo biyo qabow iyo barkin weyn iyo meel la fadhiyo iyo Nairobi la joogay iyo mas'alada maaha hawsha noo taala aan u diyaar garowna mujtamacaasaan oo shaqeyn lahayn insha Allah aan ka wada shaqeyno sheekhana khayr Allah siiyo taariikhdeena inaan ogaano ومهم هل يعني قضية دي رأينا بريجي ويستجيت أيد عادي حالة خطر بهاد كينيا إن الحسنتي الموجي خطر حدي أنت ما ده حدين أنت يسوء معده أي جوان جاري إنه يمدولد ده كلهم ور أنا كمجاعيها كينينا مركز دم بوالوق بصندونا وزير كأنا بري تتكاس مجاعيها كينينا دولد هاي نسوق بريجي هداي دهن دولد كينيا وحيربتي نود إستن إن يوحي الصومالي إن لقرحي وحين نيروبي جوج مقال بانقري أو الوصو طابعي جريدة لي راه استا
waxyaalaha aan soo qaatay waxaa ka mid ahaa yani waxaan rabay kenyaanka inaan tuso war haddaan muslimiin nahay waddankan annaka marti kuma nihin haddaan qabiilkaan nahay marti kuma nihin awalu diin oo waddankan soo gashay oo ma aragtay samaawi inay diinta islaamka inay ahayd meeshii baan ku qoray maqaalkii iyo intaasoo xujaj kale oon meeshii bayaanaad oon ku soo iyo dowrkii ay ka qaateen dadkeenna hadday jenaraal maxamuud yahay hadduu maxamed yuusuf xaaji yahay hadduu fulaan yahay dhammaanba waan qoray iyo dowrka ay ka qaateen siday waddankan ay u badbaadin lahaayeen oo hore waxa uga qabteen marka waxaana dadkaas baan nahay annaga marka hadda maanta in nala maago waxa weeyaan oo nagala dhigo dad aan waddankan aan inna aan ku lahayn ma aragtay inna aan ku lahayn miisaaniyad maxaa la dhahay miisaan iyo ma aragtay magac taas ma aragtay wallaahi ninba akhri madow oo ay garanay wuxuu yidhi sida aan uga faa'iidaystay oo arrintaana ay qancisay waxa weeyaan ma iloobay buu yidhi nin madow oo maqaalka asaga ha akhri marka boqolaal baa akhrisay stabalus maxaan u keenay arrintiide taariikhdeenna aan ogaano sifa aan xuquuqdeennana aan u ogaano haddaan taariikhdeenna garanayna xuquuqdaadana ma ogaanaysa soo saas maaha marka jazaakum allahu khayran sheekh aad baad u mahadsan tahay marka taariikhda ogaano waaqiceenna hadda waan ogaanaynaa mustaqbalkeennana waan ka shaqaynaynaa insha allahu tacaala aan qorno ummaddana aan maaragtay baraarujinna sida diinta loogu dhaqmi lahaana aan ka shaqayno waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آدي آد بومهسن يا فضيلة الشيخ عبد السلام و dadka waqtiga dheer juhdiga dheer geliyay tacliimta North Eastern buu ka mid yahay haddana waxaan kelmad siinayaa fadiilatu sheekh الدكتور آدم شيخ علي فليتفضل مشكورا مأجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وقتك واسكجب الجبوبي عرسيان qiimaha badan oo sheekheena sheekh xuseen buraale xafidahu llah waracaahu uu noo qabtay oo maadabada cilmiga ah oo taariikhiga ah oo dacawiga ah oo ummadda cidda akhrisa kitaabkaas ay runtii wax aada u macaan oo qiimo badan ay dib u jalaacayso aada baan runtii ugu faraxsan inaan ka qayb galo sheekhana cumrigiisa allah barakeeyo cilmigiisuda ilahi u barakeeyey waxaan rabaa inaan kalimaadka culimada ay dhaheen aan xoojiyo un bes wax kale ma sheegi rabo kitaabka aniga waxaan la rafiiqay 20 sano ka hore risaalada magisterka oo marka ayada ciwaankeedu u ahaa almuasasat dacwiya alislaamiya dowraha fi dacwa ila allah almuasasat alislaamiya fi kenya wa dowraha fi dacwa ila allah xilligaas wax master ah oon helay isaga ugu horreeyey gundhigii saldhig ayuuna ii noqday sida dhabta ah noloshaydana wax badan iyo aragtidayda ayuu kitaabka ka bedelay isaga ayaa marka wuxuu ii noqday iftiinka aan jidka ku iftiinsado markii dambe ilaa 500 oo master ka badan ayaan muxuu ah ku soo guuriyay kitaabka laakiin afdal master wa awthaq master bacda alquran walxadiid marka laga tago oo runtan ka faa'iiday kitaabka ayuu ahaa marka sheekha aniga aad baan ugu mahadnaqayaa jazaahu llahu khayran waxaana leeyahay akhyaarta ha laga faa'iidaysto kitaabkaas kitaab mathiilkiisa in la helo waa naadir sida dhabta ah laba qodob ayaan rabaa inaan muxuu ahaa insha allah tabaaraka watacaala kelimada ku gabagabeeyo qodobka koobaad waxyaabahaas aan ka sheekeynay ama akhyaarta ay ka sheekeeyeen oo kitaabka ku sugan sida lagu heli karo waa kitaabka qofkii inuu qaato uuna akhriyo sidoo kale maraakisteena inta halkaan fadhida nin walba ama jaamacad u jooga ama markas u jooga ama masjid u jooga inuu muxuu u cantoobiyo aniga anoo mathala أكاديمية الإمام الذهبي أم مؤسسة الإمام الذهبي للتنمية 20 نسخة هي كتاب كقاضية ونجيني إن شاء الله تبارك وتعالى الإمام الذهبي أو مديرك تعالى نجيني وأنا مقرر يلا قديجي إن شاء الله تبارك وتعالى ثالث ثانوي أرضي ذا أيانا لو ديجي دونا بإذن الله عز وجل وحن أتصنع يا مركة إن مؤسسات كانوا دن أنسى أقانه فردي علي نصلي الشخصي وان قاتي kii horena waan haystaa oo dabcan oo waliba farguri ahaan oo hoosaasaan u haystaa marka aan qaadana kitaabka aan ka faa'iidno marka
الله إذن بركايو طلبة علمي أدبدا وجوغان طبعا ومراكز تاني لنا كفرا أبو بكر الصديق أفضل إن شاء الله تبارك وتعالى أو من أفضل المراكز ومراكز تاني كنت على كينيا أي كنت على مركز أبو بكر الصديق معهد الإحسان لإعداد العلماء والدعاة كاسنا رئيس ويجوغان والشيخ داق إيو رق بدن أيات جوغا أيقنا كلهم إن شاء الله تبارك وتعالى ولا عن توبين دونا ولي عن توبين ما هني ولا جملين دونا تاسوا قضب كلمات أخياري رقي دعوة صوب الله بوقوم وهل كان يفضيان ما أنتنا دكاترة إيه مقع وين إيه هولا بدن إيه وحبان ولا شيء لكن حالده مظاهرته أنت نكبح إنه بالله عليكم مظاهرته يا هذا نقول بدته أنت مظاهرته حق إسقاطورنا كوفي ذا إيه وحي نوتري ملا حق أنا إسقاطورنا مقرتين أن قذبنا قلبي أن قذبنا والدعوة أن رجع سيكون كينين ويوش قينا ين أنا وش قينه مظاهرته عمامد وينام وتأي مقع وينام وتأي دكتور وينام وتأي مركز وينام جوجايف وح أي تري لها لا قيمة لها والله وحن كيا بيا إن أي ندحلان ويدعوة ذيني أهران ومدى دكسون تهين وتقانان إن أي أهران محي لي قل فوف وحبيب تراي وح وترى لما أرك انت أسألك السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وقتكم كوبن أوجي قيبت هوانك وحا إيادنا إنو جوجتا فضيلة الشيخ الداعية الشيخ سهر الشيخ يوسف وإن شاء الله تعالى الكلمة أنسين دونه وقتكم آدو يرأوجي مركا فلتتفضلي مشكورة ماجونة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورتنا ميه magaca unbaa maalmahan iska xoog badnaadaan filayaa dadka un ilaahay wax yar u baray un meelaha ka sheegan ka mid ahay marka waxaan u mahad celinayaa culimada hadashay iyo sheekha kitaabka alifay maadaama hadda maanta meesha dadka isugu yimid ay nukhba yihiin diinta fidisa maalmahan waxaa aada u yar in ciyaalka loo daraaseeyo siirada nabiga iyo taariikhda islaamka iyo caqiidada saddexdaaba saaxaday ka maqan yihiin marka waxaa iga baraarujina in lagu soo daro tacliinta la dhigahayo ilmuhu hadduuna intaa ka dhisnayn wax badan ayaa ka maqan kitaabka hadda waan qaato waan akhrinhayay intii hadda uu hadalka socdoo dhan aad iyo aad ayuu sheekhu si wanaagsan taariikhda ugu soo aruuriyey ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo waana idiin mahad celinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. هذا إن شاء الله تعالى أن أباقينا دمان أحبابتك كسوق يبقى شيء إن أي كتابك أي إبسدان أنت أنا جبين حارمنا إن أنكو جبينه جب هذا قروح بدن أو قصيدة شعرية أو كتابك لجو سو هذا القاضي هيو لجونا مارك قاضي دقة هيو ينسو شيء دون فضيلة الشيخ الدكتور يحيى سيد فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الحليم وصاحب الأدب الصومالي والعربي كلاهما أو كليهما هدوسا يسوي ميكروفون كيدي بينا ما قاعدين بقى لكن ما دام يسوي يدي بي ومعنى هذا طاينه يدمي بنك قاعد سجانا قسم هيا إن شاء الله تعالى دكتور كي أديب كهانا واجو دكتور أحمد عبد اللطيف بارك الله فيكم وأن أمانتي وين كيدا ويديسان هيا بسم الله وحاوي أبيات كهذا كتابك بمناسبة تدشين كتاب الدعوة الإسلامية في كينيا بتأليف فضيلة الشيخ حسين إبراهيم برالة وهذه الأبيات بعنوان الرائد طالما أن الكتاب هو في طليعة الكتب المؤلفة في الدعوة الإسلامية في كينيا عنونتها بهذا العنوان: أطلق فؤادك يا أخي لتحتفي، أطلق فؤادك يا أخي لتحتفي بكتاب شيخ وصفه شهم وفي، إذ أنه كسب السباق ببحثه وبداية التأليف دور المسعف. هذا الكتاب طليعة بحثية عن كينيا ولدعوة لا تختفي. هذا الكتاب خلاصة زمنية ونتاجه في كل حين فاقطفي.
يصف الكتاب محطة فمحطة فأتى على مر الزمان المقتفي ولقد أبان وصول الدين محمد ولقد أبان وصول دين محمد في كينيا أكرم به يا من يفي ثم انثنى متتبعا وموضحا في نشر دعوته كما لم يؤلف وختامه أحسى نتائج بحثه بمهارة وخلاصة المستهدف لكن محاسنه تناثر ضوءها في الأفق لامعة فلا هي تنطفي كم عالم كم باحث كم كاتب يحتاجه وبه الأحبة قد كفي ولقد قطفت ثماره للرسالة حتى اختبرت المحتوى كي أصطفي يا شيخنا أحسنت في تأليفه وسلكت نهج العالم المتثقف وكشفت عن حلم الدعاة مصافحا أيدي الكتابة قدوة للمقتفي ولقد نسجت نموذجا كي يحتدى ألبسته ثوب الطموح المعرفي صلوا على خير الورى مع صحبه من يكثر التسليم فيه قد كفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا فض فوق بارك الله فيك صح لسانك الله أكبرك يا قصيدة داس قروح بدن أو ينوجه دي دكتور حسين دكاترة ترى بدن بتشوكتا وقت كنا ونقدر ماضي ما شاء الله هو لبقى فن هلال دقيقة سين دونا الصلاة دي هلا شوامية وركا إعلان بان سمينا إعلان كسؤال نعم نعم إمامكم فسحنا دكتور فسحنت هاي لما أنتي ما فسحي دونا إعلان كمان كختمنا دورة دكتور خضر في قل مقارن كأهيد وإن شاء الله ولا جبين دونا هبين كأحد صوص عضة وركا جلسة ختامي كأهيد وهبين كأسوي وحكى لو باقي هيا ضد كأنك السوق بجلان حفلة جود والله سمين دونه خميس تصوص عطا هوتيل بارادايس صبحي أفر ساعة الصبح نمنا خميس تس الكاس أي الله سمين دونا حفلة كتاب ختم كيس لكن وهبين كأحد يسوق ليسوق إعلان كاسنا وأن كده بقينا يا مركا لما أنت وما سنتهين وحن آدي دكوا باقينا إن كتاب كقفله وإنه هلك قاطو إن رجع إسوسومر دايما توادت كيرنا إستن waxayna ku tusaysaa ihtimaamka la siinayo taariikhda islaamiga ah ee dalkan aan ku leenahay marka taariikhda wax ka baro islaamku goortu wadanka yimidna baro ogow inaad ka taariikh dheer tahay gaalka wadanka haysto diinta kiristaanka gabi ahaanteed waxay joogtaa dalkan 60 sano oo qur ah muslimkana 10 qarni buu joogaa midkeenee laan dheeraysan marka hadii lagu faano عتقي يو قديم نما هدي لغوفانو أننا كسر ريني أننا وطن كان أوجسه ريني دين ودم أننا أوجه ريني يقول لحدا كيسنة قوم يسوق شوقي يوم بيجاليهن أننا كجابنا يوحل ربيين إنه إسلامنا دمان تود مركا تاريخ لاس خروج بدن كتاب كقرآن وقاعد دقة هيو إن سفي عن ولا سعتان تلكنا إن غيبت أقوين كل ذهين إن دقاتان آدي يا دمها سنتهين آدي بان إذنكم هذا علينا جزاكم الله خيرا.